habboon dhammaantiin baa khiyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii caalamka oo waqtigan oo kale ka daawataan telefishinka madaxa banaan ee Bersen TV istuudiyihiisa koowaad ee magaalada Hargeysa warkana waxa uu diyaara aniga oo ah Cabdifataax Maxamed Cabdibeeg qodobada warka ugu doorka roolana waxa kamid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil ayaa ka warbixiyay sababta ay si ku meel gaar ah uga wareegeen maamulka Hotel Crown ee magaalada Hargeysa wardiyahanka caanka ah Maxamed Faarax dhalashahaana ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland una ciyaara dalkaasi England ayaa ku guuleystay orodka 10,000 ee mitir ah ciyaaraha ka socda Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil ayaa ka warbixiyay sababta ay si ku meel gaar ah uga wareegeen maamulka Hotel Crown ee magaalada Hargeysa sida warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Samatar Saxardiid wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa sheegay in si ku meel gaar ah gacanta ugu hayeen maamulka Hotelka Crown ee magaalada Hargeysa iyadoo hotelkaasi ay fanaanada nasteexa inta ku sameeynaysa bandhig faneed waxaana wasiirka hadaladiisa kamid ah sida inuu naga dhigay ummad muslim waxa maqasheen maalin dhawaato inay ka soo degtay airport Hargeysa inan fanaanada oo nasteexa inta la yiraahdo inta fanaanadii waxay calaamisay oo ay shaacisay inay show sameynayso showgaas oo bandhig faneed amba heeso showgaas iyadoo aan cidna marin wasaaradda Xuseen marin ayaa ay bandhigtay markii warbixinta laga daawadayna adduunka dalka Soomaaliland markay arkeen wasaaradii bay u leeyimaadeen iyagoo cabanaya walay waxa jira dhibtaas jirta waxaan doonaa wasaaradda ahaan inaad nala eegtaan si aanan lugu gacanta sharciga u qaadanin ama aan meelaha ka hadlin ama aan khudbadaha jimcaha iyo meelaha masaajidada aan looga hadlo waa ogtihiino adduunka maantana waxa weeyaan adduunyo yani meediyihi uu ku leeyahay awood uu ku leeyahay Samatar Saxardiid Bersen TV Hargeysa saddex geesooda ayaa maanta gobolka Sanaag ku dhaxmaray wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland maamulayaasha dugsiyada iyo barsaabka gobolkaasi Sanaag مسؤولينta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag maamulayaasha dugsiyada iyo macallimiinta dugsiyada ay kaga wada hadlayeen natiijadii ka soo baxday imtixaanka shahaadiga Soomaaliland ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaab oo ay arday tiraba 60 ay natiijadooda lagu saxay DEA kuwaas oo jaamacadaha dalka aan geli doonin waxayna mas'uuliyiintani ka wada hadleen sidii dhacdadani aanay mar dambe gobolka uga dhici lahayn kulankan oo ka qabsoomay dugsiga dhexe ee Suurada ee magaalada Ceergaab oo saacado badan qaatay ayaa kadib kulanka markii uu soo dhamaaday waxa halkaasi warfidiyeenada kala hadlay xildhibaan jaamac Jibriil Deeliye wasaaradda iyo ardayda iyo waalidka iyo gudida weeye iskuulku iyo dhismaha ayay wuxuu ka kooban yahay ninkii hawshiisa ka soo bixi waaya inaynu cadeyno oo aragno weeye gudoomiyaha Aniis Saalax Xaaji Xasan runtii waan ku amaanaynay intuu yimi iskuulka nin wadani ah ardaydii kala garanaya maagayno runtii waa macallimiin wanaagsan laakiin wixii ay dhaliil leeyihiin waan u sheegaynaa mana ka qarinayno Aniis wuu sheegaynaa kormeerayaasha wuu sheegaynaa macallinka iyo ardayga shaqadooda ka adkaan waa inaad ka joojiso shaqada ardaygana erdo macallinkana u gudbiso maxay tahay gudoomiyaha tirada uu shaqaysan waayay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Aniis Saalax Xaaji Xasan waxa dhacay inaynu ka baroordiiqno inaynu ka fakarno sidii aan dib ugu dhaceen waynu xafladan shirkan u qabanay maanta shantii darajo ugu sareeyay ee arday keeno Xaaji Aadan Muukeeni waxa la doonayaa markaa aynu isugu nimi inaynu arrinta ka fakarno golaha deegaanka iyo odayada waxaynu u sheegaynaa ina guddi nala sameeysan 5 qof ka kooban annaan keeno 6 macallin keeno dabadna aynu ka fakarno waa run ardayga maqlaanaya laakiin waxa su'aal maxaan dooriyo weyni waxaan xusuustaa mar walba ku maamaha iskuulka garadag 14 arday baa secondary ka baxay 14 kiiba biibe keenan maxaa lagu fulayaa 500 arday oo wada keenay DEC gabagabadii kulankana waxa halkaasi ka hadlay barsaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay halkaana bal isu duwe guddi macallimiinta ka samee aniguna waan idin la baraqabayn doonaa haddii la ka dhigo guddida macallimiinta liftooda jeegaraynayna ardayda liftooda waa la eegaado
dee waxa weeye bishiiba waxaan soo jeedinayaa in hal mar imtixaan la qaado waxay soo dhigteen ardayga waxaa la rabaa inuu muraaqabeeyo macnaha inuu joogteeyo xidhiidhkiisa haddaanay ardayga iyo macallinku saaxiibin dee waxba soo bixi maayo waxbarashadii waxay noqonaysaa waxbarasho aan tayo lahayn bay noqonaysaa sekretarigu waa halkii u dambeysay jaamacaddii looga gudbayey waalidiinta dhammaan gobolka Sanaag waxaan ka codsanayaa gaar ahaan degmada Ceergaabo inay taxadir badan sameeyaan oo macallinka uu yiraahdo war bal ka waran ilaabtiisa waxbarashadiisa wiilkii hadda maalintii baado uu isbedelay koox ka socota ururka jaamacadda Carabta ayaa booqasho ku tagtay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sida uu warkaasi noogu soo diray wariye Saddam Xuseen wafdi ballaaran oo ka socda ururka jaamacadda Carabta oo weliya agaasimaha waxbarashada iyo tacliinta sare Dr. Yusuf Ali Ardo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Burco waxaanay wafdigan kormeer ballaaran ku tageen jaamacadda Burco halkaas oo ay mid u kormeereen qaybaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay iyagoo warbixino kala duwan oo la xiriira jaamacadda ka dhageystay maamulka jaamacaddaasi wafdigan ballaaran oo ka socda ururka jaamacadda Carabta ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inay jaamacadda Burco aqoonsadeen xubin ka mid ah ururka jaamacadda Carabta kormeerkaasi kadib shir jiro ay si wada jir u qabteen gudoomiyaha jaamacadda Burco Dr. Suleyman Zahir Abdi iyo agaasimaha waxbarashada iyo Dr. Yusuf Ali Ardo ayaa ka hadlay arrimaha jaamacadda waxaan hadaladoodii ka mid ahaa Jordan ka yimi meelo badan soo maray oo ka kooban 4 xubnood wafdi culus aad baan ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweyno jaamacadda Burco aad iyo aad baan idin qiimeynaynaa inaad nala aragtaan dabadna aad isbarbar dhigtaan bal waxaad xagga ku haysaan iyo waxa nu halkan ku hayno iyo sidaynu soo caawin karro waa mahad celinaa jaamacadda Burco sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen dhamaantiin sideed wada ogsoontihiin jaamacadaheenu waxay tahay runtii inay ku biiraan ururada jaamacadaha adduunka si ay ula qaybsadaan jaamacadaha waxa ka socda cilmi baarista macallimiinta la isdhaafsado ardayda la isdhaafsado in aqoonta la wadaago in marba wixii cusub hadii beedmayay aynu la socono Dr. Sultan Abu Arabi xogayaha guud ee ururka jaamacadaha Carabta ayaa jaamacadda Burco ku amaanay horumarka la taaban karo ee ka muuqda wuxuuna xogayaha guud ee ururka jaamacadaha Carabta si rasmi ah shaaca uga qaaday inay jaamacadda Burco u aqoonsadeen inay xubin buuxda ka noqoto ururka jaamacadaha Carabta اليوم هذه الجامعة جامعة برعو في هذا البلد الطيب بالأمس كنا في جامعة العمود زرناها الهدف من هذه الزيارة هو زيارة الجامعات في أرض الصومال والاطلاع على المستوى التعليمي وعلى البنية التحتية وعلى البرامج الأكاديمية المختلفة في هذه الجامعات نحن نشعر في اتحاد الجامعات العربية من ناحية عامة وحقيقة في الجامعات الأردنية من ناحية خاصة wardiyahanka caanka ah Maxamed Faarax Dhabashahaana ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciyaara dalkaasi England ayaa ku guuleystay orodka 10,000 ee mitir ah ciyaaraha ka socda Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil sida warkaasi nagu hayo wariyahayaga Xamse Diinawi Mo Faarax orodyahanka salhaan Soomaaliland ka soo jeeday oo orda Britain ayaa ku guuleystay biladaha dahabka orodka 10,000 ee mitir ee ciyaaraha Olombikada ee ka socda magaalada Rio de Janeiro dalka Brazil Mo Faarax ayaa noqonaya orodyahanka ugu horeeyay ee Britain ah ee markii saddexaad guuleystay biladaha dahabka ee Olombikada Mo Faarax ayaa Olombikada London ee 2012 waxa uu ku guuleystay bilada dahabka orodka 10,000 iyo 5,000 ee mitir isagoo 2013 iyo 2015 sidoo kale ku guuleystay orodka 5,000 iyo 10,000 ee mitir ee caalamka Xamse Maxamuud Sheekh Barsan TV magaalada Hargeysa warkii wad ka daawanaysan telefishinka madaxa banaan ee Barsan TV stuudiyihiisa koowaad ee magaalada Hargeysa habeenkan caawa intaas ayuu naga eegyahay inta aynu ku kulmi doono warka xiga daawadayaal waa Cabdi Fataax Maxamed Cabdi Dhagoodi kaga tagaya fi amaan illah